magaalada Sheekh waxa ku yaala oo kale gudbiga Sheekh Qutub oo la sheegay inuu jira in ka badan 800 oo sanadood ahna halka magaca magaalada Sheekh uu ka yimi magaalada ama degmada Sheekh la yiraahdo magaalada horta waxa weeye badda waxay ka sareysaa waxa waa 1500 oo mitir ama 5000 oo feet area degmada ku fadhido degmada waxay ka kooban tahay waa 9 tuulo area ku fadhidana waxa weeye waa 1600 oo kilomitir square degmahan magaalada population-ka dadweynaha ku nool haddii magaalada ilaahna waxaan noogu qiyaasay 10,000 oo qof degmada wadan marka la yiraahdana waa 600,000 oo qof cimiladeedu waxay ugu kulushahay xilliga roobaadka guga iyo dayrta heerkulkeedu wuxuu gaaraa 20 degree ilaa 600 buu dhaxaya inta kuleelka xilliga qabowga xilligan kale ugu qabowdahay waxay tagtaa 5.5 up to 20 waa December January iyo February saddex bilood intaasay u dhaxaysaa roobahan waa dhul highland oo dhulka ugu roobka badan marka Soomaaliland la yiraahdo sanadkii waxa heshaa 533 mm ayay weeye average annual rainfall keedu degmadu iyadoo waxa weeye warbixinteedu wata waxay qarniyo badba jirtaa degmadu طريقة ugu horeysay asaaskeedu oo qarniyo bada Sheekh Aadan odayga la yiraahdo qudbigiisu halka yahay ama Sayid Aadan ba ayaa asaaskii degmada ayaa ahaa magaalada Sheekh magaca Sheekh la yiraahdo waxa ka keentay qudbiga Sheekh Qutub oo isagu 800 oo sanadood meelahaas ayaa magaca halka magaalada Sheekhyada Sheekhan kalena Sheekh Aadan uu ka dambeeyay isagoo qarniyo bad waxay ahayd 1972 intii hore waxay tuulo ka tirsan degmada Berbera